السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان walalaha Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan waani waa macallin Shariif fiidiyogan waxaan kula wadaagayaa 7 sababood oo carruurta looga eriyo iskoolaadka iyo waxa aad ka samayn karto waalid ahaan si aysan carruurtaada ugu dhicin sanad kasta kumanaan carruur ayaa laga buriyaa iskoolaadka waddankan Ingiriiska qaar ka mid ah carruurtan iskoolka maalmo kooban ayaa laga joojiyaa halka kuwa kale gabi ahaantoodba laga buriyo iskoolaadka oo aan sinaba loogu ogolaanin inay ku soo laabtaan iskoolaadka qatarka weyni ma jirto in canugaaga laga eriyo iskoolka adigoo aan meel aad la aado u haynin marka hore waa maxay exclusion waa ardayga oo laga saaro dhismaha iskoolka oo aan loo ogolaanin inuu ka qayb qaato casharadiisa iyo barnaamijyada kale ee ka socda iskoolka ka saaridda ilmaha laga saarayo iskoolka waxay noqon kartaa laba mid fixed term exclusion ama permanent exclusion. Fixed term exclusion waa marka ilmaha laga saaro iskoolka waqti go'an oo cayiman. Ilmaha waa loo ogolaanayaa inuu ku soo laabto iskoolka kadib marka uu dhammaysto waqtiga yar ee laga eriyay iskoolka. Ilmaha waxaa sharci ahaan laga eriyi karaa iskoolka ugu yaraan 1 maalin, ugu badnaana 45 maalmood. Ilmaha haddii laga eriyo iskoolka waqti ka badan 5 maalmood waa in iskoolka ay waxbarashadiisa u sii wadaan laga bilaabo maalinta 6aad. Permanent exclusion waa marka ilmaha laga saaro iskoolka si joogto ah. Taasi macnaheedu wuxuu noqon karaa in canuga aan loo ogolaanin inuu iskoolka ku soo laabto ilaa permanent exclusionka laga saaro oo uu ku guulaysto racfaanka waalidkiisa ay ka qaateen dacwadiisa. Ardayga permanent exclusionka la siiyey waa laga saarayaa liiska ardayda ee iskoolka. Maamulka degmada iyo kansalka ayaa sharci ahaan looga baahan yahay inay u raadiyaan iskool laga bilaabo maalinta 6aad. Tirokoobyada laga sameeyay ardayda iskoolaadka laga eriyay maxay sheegeen? Baaritaano ay samaysay wasaaradda waxbarashada waddankan Ingiriiska ayaa lagu sheegay in ardayda waddankan Ingiriiska ee iskoolaadka laga eriyay ay sare u kacday 71% 7 sano la soo dhaafay. Tirada ardayda permanent exclusion la siiyay ayaa gaartay 2,097 halka tirada fixed term exclusion la siiyay ay gaartay 183,817 arday. Haba ugu darnaatee gobolkan England oo tirada ardayda laga eriyay iskoolaadka ay gaartay 7,905 arday. 81% carruurta permanent exclusion la siiyay waa arday dhigata dugsiga dhexe ee secondary schoolka. Waa maxay sababaha ugu waaweyn ee carruurta looga eriyo iskoolaadka waddankan Ingiriiska? Sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada waddankan Ingiriiska, sababaha ugu waaweyn ee carruurta looga eriyo iskoolaadka ayaa ah persistent disruptive behavior oo ah arbushaad joogto ah, physical assault against an adult oo ah dagaal ka dhan ah shaqaalaha iskoolka, physical assault against a pupil oo ah dagaal ka dhan ah ardayda iskoolka, verbal abuse or threatening behavior against an adult oo ah aflagaado iyo hanjabaad ka dhan ah shaqaalaha iskoolka, verbal abuse or threatening behavior against a pupil oo ah aflagaado iyo hanjabaad ka dhan ah ardayda iskoolka, damage oo ah jajabin qalabka iskoolka, bullying oo ah xoog sheegasho ama handadaad. 72% carruurta iskoolaadka laga eriyay waxaa looga eriyay persistent disruptive behavior, arbushaad joogto ah iyo in la jebiyo sharciyada akhlaaqda ee iskoolka. 13% waxaa looga eriyay physical assault against a pupil oo ah la dagaalanka arday kale, halka 15% looga buriyey iskoolaadka sababo kale sida bullying ama racist abuse. Waa kuwee carruurta ugu badan ee iskoolaadka laga eriyo? Cilmi baaris ay samaysay hay'ad magaceeda la yiraahdo Head Start ayaa lagu ogaaday in ardayda ugu badan ee laga buriyey iskoolaadka ay yihiin wiilal oo gabdhuhu uma badna in iskoolka laga eriyo. Hay'addu waxay kaloo sheegtay in kala bar carruurta iskoolka laga buriyey ay baahiyo gaara qabaan, special educational needs ama SEN. Sidoo kaleeto carruurta free mealka qaata iyaguna waxay 4 jibaar khatar ugu jiraan
in iskoolaadka laga eriyo halka carruurta ka soo jeeda dadyowga laga tirada badan yahay oo Soomaalidu ku jirto si qiyaas la'aana looga eriyo iskoolaadka marka la barbar dhigo ardayda kale ee iskoolaadka. Waa maxay habraaca eriyidda ardayda ama exclusion process? Iskoolka haddii uu go'aansado inuu eriyo arday si joogto ah ama permanent exclusion, waa inay sababtu ahaato oo keliya in ardaygu si joogto ah u jabiyey heerka akhlaaqda ee iskoolka, amaba sii joogitaanka ardaygan iskoolka ay si weyn u dhaawacayso waxbarashada ama daryeelka ardayda kale ama midda shaqaalaha. Waxaa laga doonayaa tiijarka inuu waalidka ogeysiiyo, warqadna u diro, oo uu ku sharaxayo waxa dhacay iyo sababta ilmaha looga eriyey iskoolka. Waalidka waxaa loo sheegayaa inay soo xaadiraan kulan looga hadlayo tallaabooyinka xiga ee la qaadayo. Guddiga maamulka waa la ogeysiinayaa kulankan iyo waxa looga hadlayo. Haddii ilmaha permanent exclusion la siiyey, iskoolka loo ogolaan maayo inay ka saaraan ilmaha magaciisa diiwaanka ardayda ee iskoolka ilaa guddiga dib u eegista madaxa bannaan ay go'aan soo saaraan. Waase haddii waalidka ay go'aansadaan inay racfaan ka qaataan exclusionka lagu sameeyey ilmahooda. Dowladda hoose ama councilka ayaa laga doonayaa laga bilaabo maalinta 6aad inay ilmaha iskool u diraan amase ay u diraan pupil referral center. Waa maxay pupil referral center? Pupil referral center waa xarun iskool oo kale ah oo loogu talagalay carruurta aan la qabsan karin iskoolaadka caadiga ah. Meeshan waxaa la keenaa oo keliya carruurta iskoolaadka laga soo eriyey iyo kuwa carada xaddhaafka ah qaba amaba looga shakisan yahay caafimaad darro maskaxda ah, sidaa darteedna sugaya baaritaanno baahiyaha gaarka ah. Goormee ayaa laga eriyi karaa canugaaga iskoolka? Sida wasaaradda waxbarashada waddankan Ingiriiska ay sheegtay, waxaa canugaaga la siin karaa permanent exclusion oo keliya markii iskoolka uu isku dayey tallaabo kasta oo canugaaga looga badbaadin karo in laga eriyo iskoolka. Waa sharci darro in canugaaga iskoolka laga eriyo sababo aan ka ahayn akhlaaq xumo. Tusaale ahaan, iskoolka kama eriyi karo ilmahaaga haddii aysan dabooli karin baahidiisa gaarka ah, amaba haddii waxbarashadiisa ay hooseyso, amaba wax waalidkiis uu sameeyey darteed. Sidoo kale waa sharci darro in ilmaha looga eriyo iskoolka si aan rasmi ahayn, informal exclusion ama internal exclusion, ama waqtigiisa iskoolka oo loo bedelo galinka hore subaxdii ama galinka dambe galabtii. Mararka qaar waxaa dhaca ilmaha oo qaba baahiyo gaara laakiin aan laga warhayn in iskoolka ay u qaataan in ilmahan akhlaaqdiisa ay xun tahay, sidaa darteedna iskoolka looga buriyo. Waxaa kaloo laga yaabaa in baahiyaha gaarka ah ee ilmahan uu leeyahay waalidka uu ogaa laakiinse uu dafirsanaa xaaladda ilmahooda. Si kastaba ha ahaatee, iskoollada inta badan ma tixgeliyaan haddii ilmaha baahiyihiisa gaarka ah aan la soo caddayn. Inta badan maamullada iskoolaadka iyo guddiga dib u eegista madaxa bannaan waxay ku raacaan go'aanka madaxa iskoolka amaba headteacherka uu qaatay, xitaa haddii go'aanka headteacherka uu yahay mid aan sharciga waafaqsanayn. Sababtoo ah iyagu awood uma laha inay canugaaga dib ugu celiyaan iskoolka. Warkoodu wuxuu ku egyahay oo keliya tala soo jeedin. Meeqa jeer ayaa canugaaga suspension lagu samayn karaa? Canugaaga waxaa laga eri karaa iskoolka 45 maalmood halkii sana dugsiyeedba. 45taas maalmood hal mar ayaa la wada siin karaa amase waa loo yaryareen karaa. Rikoorka miyaa loo gelinayaa ilmaha haddii iskoolka laga eriyo? Haa, waa sharci in ilmaha loo geliyo rikoorkooda inta maalmood ee laga eriyey iskoolka iyo akhlaaqdooda guud ahaaneedba. Waa maxay xeeladaha sharci darrada ah ee iskoolaadka qaar adeegsadaan? Sababta keliya ee ilmaha iskoolka looga eryi karo waa cilladaha la xiriira akhlaaqda, ayadoo la eegayo siyaasadaha anshaxa ee iskoolka.
iskoolaadka qaarkood ilmaha waxay u eryaan in iskoolkoodu uu helo natiijooyin wanaagsan liiska horyaalka iskoolaadka. sidaa darteed waxay cadaadis ku saaraan waalidiinta carruurtoodu ay waxbarashadoodu hooseyso inay kala baxaan iskoolka. waxay uga hanjabaan waalidka inay iskoolka ka eryi doonaan canugooda, rikoorkana ay u gelin doonaan haddii aysan canugooda kala bixin iskoolka. iskoolaadkan waxay geliyaan ilmaha internal suspension joogto ah ilaa uu waalidka quusto ilmihiisana uu kala baxo iskoolka. iskoolaadka qaar waxay u sheegaan waalidka inaysan dabooli karin baahiyaha gaarka ah ee ilmahooda. sidaa darteed waxay ku wargeliyaan waalidka inay canugooda u raadiyaan iskool kale. sidoo kale iskoolaadka qaar waxay ku khasbaan ilmaha inay iskoolka soo xaadiraan subaxdii ama galabtii halka ay ka aadi jireen maalintii oo idil. dhammaan xeeladahan waa sharci darro, waadna ka dacwoon kartaa adigoo la tiigsanaya maxkamadda. waa maxay saamaynta in canugaaga laga eriyo iskoolka ay ku yeelan karto mustaqbalkiisa? sida lagu ogaada baaritaano la sameeyey, 1% cunug oo keliya ayaa hela 5 GCSE ee ardaygu u sahlayso inuu u gudbo waxbarashada dugsiga sare, midda heer jaamacadeed iyo fursadaha shaqada ee waddanka. carruurta laga eriyey iskoolaadka waxay ku dhacaan dhibaatooyin xagga dhaqanka ah, kuwa xagga akhlaaqda ah, iyo dhibaatooyin xagga feejignaanta ah. waxay kaloo u nugul yihiin inay yeeshaan caro xad dhaaf ah, kalsooni darro fara badan, iyo niyadjab saa'id ah. carruurtan waxay kaloo u nugul yihiin inay ku biiraan baandooyinka hubaysan ama gangs, iyo inay ka ganacsadaan muqaadaraadka, khaasatan daabulista daroogada iyo u kala gudbinta gobollada waddanka. 89% carruurta ku xiran xabsiyada dembiilayaasha da'da yar waa carruur laga soo buriyey iskoolaadka, sida uu sheegay maamulaha guud ee xabsiyada. 63% dembiilayaasha ku xiran xabsiyada dadka waaweyn ee waddankan Ingiriiska waxaa la xaqiijiyey in iskoolka laga soo eriyey markay yaraayeen. carruurta laga eriyey iskoolaadka waxay ku shabadaysan yihiin inay yihiin dad xun oo aan la rabin. sidaa darteed waxay wajihi karaan caafimaad darro xagga maskaxda ah. carruurta la geeyo Pupil Referral Center waxaa ku adkaan kara inay ka soo kabtaan, maadaama xarunta loogu talagalay oo keliya carruurta akhlaaqda daran. maxaad samayn kartaa haddii ilmahaaga fixed term ama permanent exclusion la siiyo? haddii ilmahaaga laga soo eriyo in ka badan 5 maalmood, waxaa lagu soo dirayaa warqad kuu sharaxaysa sababta looga soo buriyey iskoolka iyo tallaabooyinka kuu furan ee aad qaadi karto. waxaad abiil ama racfaan ka qaadan kartaa go'aanka looga eriyaya canugaaga iskoolka. guddiga maamulka iskoolka ayaad la kulmaysaa. kulankan waa inuu ku dhaco 15 maalmood gudahood. kulanka waxaa soo xaadiraya waalidiinta iyo qofka u doodaya waalidka, madaxda iskoolka iyo guddiga maamulka. waxaa la dhegaysanayaa madaxa iskoolka, waalidka iyo qofka u doodaya iyo guddiga iskoolka intaba. waalidka waxay halkan ka sheegi karaan sababaha ay ku diidan yihiin go'aanka madaxa iskoolka, waxayna cabbiri karaan aragtidooda iyo walwalkooda ku aadan ilmahooda. waalidka waxay weydiisan karaan guddiga maamulka iskoolka in dib loo soo celiyo ilmahooda iyo in laga saaro exclusionka. haddii guddiga maamulka iskoolka ay ku raacaan go'aanka head teacherka ee ah in canugaaga laga eriyo iskoolka, waxaad codsan kartaa independent review panel ama guddiga dib u eegista ee madaxa bannaan oo ka kooban 4 ilaa 5 qofood oo khibrad u leh sharciyada iskoolaadka iyo kuwa waxbarashada. guddigan waa ay ka madax bannaan yihiin iskoolka, inta badanna waxay ka socdaan dowladda hoose ama kansalka. haddii guddiga madax bannaan ay ku raacaan go'aanka iskoolka, waxaad u tegi kartaa
gardoonka dowladda hoose ee loo yaqaano ombudsman. sidoo kale haddii aad aaminsan tahay in ilmahaaga loola dhaqmay si cunsurinimo ah, waxaad qabsan kartaa lawyer, waxaadna ka dacwoon kartaa maxkamadda. dacwadda maxkamadda waa inaad gudbisaa 6 bilood gudahood. maxaad samayn kartaa si aad u caawiso ilmahaaga ka hor inta aan iskoolka laga eryin? haddii ilmahaagu dhibaato ku galo iskoolka, wax kastoo ay ahaataba, waa inaad u sheegtaa inuu run ka sheego waxa dhacay, inuu durba raaligelin ka bixiyo khaladaadka uu sameeyey, inuu ka hadlo siday u saamaysay waxa dhacay, inuu dembigiisa ilaawo laakiinse uu ka fikiro inaysan mar kale dhicin. iskoolka weydii waxa ay samaynayaan oo ay ku caawinayaan ilmahaaga, meelna ku qoro. sidoo kale weydiiso qaybta baahiyaha gaarka ah ee iskoolka ama sankooga inay ilmahaaga isha ku hayaan xaaladdiisa, khaasatan haddii aad oga shakisan tahay in ilmahaagu uu baahiyo gaara leeyahay. maxaad samayn kartaa ood ku caawin kartaa ilmahaaga marka laguu sheego in iskoolka laga burinayo? in ilmaha laga eriyo iskoolka waxay u tahay xaalad murugo leh oo u baahan inaad garab istaagto ilmahaaga adigoon eegaynin khaladkiisa. si fiican u dhegayso ilmahaaga, fahan oo ka dhiidhi shucuurtiisa, gurigaagana ka dhig meel aad ugu nasteexayso ilmahaaga oo ay iskaga saaraan buuqa, kuna dareemaan ammaan iyo raynrayn. u samee gurigaaga xeer iyo xuduud aan laga tilaabsan karin. caawinaad raadso, lana wadaag qof kasta oo aad isleedaha waxbay kaa caawin kartaa. maxaad samayn kartaa marka ilmahaaga iskoolka laga soo eriyo kadib? raacfaan ka qaado go'aanka looga soo eriyey ilmahaaga iskoolka. codso inaad la kulanto guddiga dib u eegista madaxa bannaan. u raadi ilmahaaga qof la taliya oo uu ku nafiso oo kala hadla waxyaabaha uu ka walwalsan yahay. weydii iskoolka in ilmahaaga baahiyihiisa gaarkaa la tixgeliyey marka go'aanka eriidda la gaarayey. u raadi ilmahaaga iskool kale, xitaa haddii uu yahay iskoolkaas iskoolaadka gaarka loo leeyahay. looyar qabso haddii aad isleedahay canugaaga si cunsurinnimaha ayaa loola dhaqmay. maxkamaddana ka dacwo. la wadaag walaalaha kale. waa mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.